السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان أصحاب السوداء أصحابته وحين سعودي عشرة امتحانها أو إن كهذيني mathematics كسكندرية خاصة chapter كيها trigonometry وحاينو سلا فيرين دونا حسدنا ما تم عشر كنا ما تم كسب سنة أصحابي عوان لي هذا complement angles يعني ما حق لها يسد ما يستيرا complement angles وحلي ذا وحق لها يسد ما يستيرا sidoo kale maxaan laga wadaa xagla is dhameystira waxaan laga wadaa ar angles wax la yiraahdo waa xaglo ar angles wax la yiraahdo waa xaglo waxa loo yiri ar angles waa xaglo that add up kuwaas oo wax leedahay isku dhameystiraya 90 degree isku dhameystiraya yani ma maxay xagluhu intaas oo nooc xagla jira complementary angles baa jira supplementary angles baa jira haduu ilaahay mar inoo qadaro marba waxaan isla fiirin doonaa sidoo kale xaglaha types of angles xaglaha hadaba markii aynu ka hadlayno trigonometry-ga ama aan leenahay xaglaha is dhameystira waxaan ku raadey MB ugu soono only we use in tan xaglaha tan kaliya waan ku isticmaali doonaa sin nooma isticmaali doono cos nooma isticmaali doono tan kaliya aanu isticmaalayna waxaanu isticmaalaynaa tan haddii sin aanu isticmaali lahayn awal anagu meeshan sin inta qor lahayn haddii aan xagasha bedelno waxay nooga bedelmaysaa cosna waxay nooga bedelmaysaa sin laakiinse tantu haddii aynu bedelno weligeed tanteedii baynu ahaanaysaa yani waa maxay tantu cos isma bedeli karno tantuna sin isma bedeli karno tantu waa isla tanteedii bay ahaanaysaa سلاجلد بقى واحد اللي يرهدي هلا استعماله complementary angles كمر كأنه رمله إن أنه استعماله تان كليا استعمالنا سين نوم استعمالنا كوس نوم استعمالنا تان كليا بينه استعمال دونا هل لا لبيك سامبل مركا يعني سلا فيرنو وحير يوز واحد سمع شاب وكيل هذي complementary rule حركة واحد اللي ده ما يسترن كحق لها سقاش كيس كنا ما يستري يعني استعمال أنا يذن solve كدمنا واحد يرى ذا حل حقلها لما يصيرن كحقله واحد كرادي واحد يسكب وحني سقاشن هذا مرة كواد واحد كشقين دونا سداس أي تايم أنا وشقين دونا كدمنا يضو complementary rule عن استعمالنا بينه كشقين دونا أمر هذا مرة كواد سدا إنه كشقينه سدا أوجد دام واحد يرى ذا reference angles واحد يرى ذا بينه هيسنا reference angles كده هيسنا reference angles kaasi tooskiisa waxa mar alla la mar kasta inaga soo qabanaya waxa la yiraahdaa opposite keeni baa inaga soo qabanaya xagasha 9 ka aan leen ka soo horjeeda waxa la yiraahdaa mar kasta waxa uu isagu yahay waa hypotenuse keeni weeyaan hadaba aniga waxa hypotenuse lama siin maadaama hypotenuse ki aan la siin opposite kiina aan haysto leen kasta xaadi soo hara waxaan ku sheegnay mar kasta waxa uu noqonayaa adjacent buu noqonayaa هذا بحير كان قدر هذا نقول لامنو أي نقول صدق منها تو وحنا سفيرين دونا opposite adjacent سيا إنه حريرين كره automatically مسك حد إنه وحقه صدق عاية تان هذا وحنا لنا هاي solution إنه حلنا تان تيتا وحاي لما عنا تمام ليه هاي opposite كيجا ولو قيبية adjacent كيجا هذا بحاجة وان هيستعين مثلا هيسا صدني شن بان هيستعين وحنا ليه هاي تان صدني شن وحاي لما عنا تايبان ليه opposite كي جوا إميسا 9 سنتيمتر لو قيبي adjacent كي جماعة هيستو x سنتيمتر هذا بكالكوليتر كجمر كأتكو في ريسو وهذا حسابي سو تان صدني شن بحكوزو بحيتونا قيمة دان 0.7 0.7 بقوس بحيدونا وحاي لما معناتها هاي 9 سنتيمتر ولو قيبيي x سنتيمتر هذا cross multiplication هذين استعماله cross multiplication هذين استعماله وأنا كمان باو قرصون 9 كيوان كاس وايس كل عيان وحكي صوب حيا هالكاس 9 وحاي لما معناتها معناها هاي x 0.7 هذا عن كل فطور waxay soo baxaya 0.7 oo lagu dhuftay x hadaba si aan x u helo
dhinac kasta waxaan ku khasbanahay inaan u qaybiyo 0.7 dhinacna waxaan u qaybinayaa 0.7 haddaba x waxa ii soo baxaya 9 oo loo qaybiyay 0.7 haddaba calculator-kaaga haddii aad xisaabsato oo aad qiimaysato 9 divided by 0.7 waxa ku soo baxaya x in ay leegtahay wax la yiraahdo 12.86 markii la tuuris meel bilis lagu soo koobo haddaba inta waxa inoo soo baxay qiimaha x baa inoo soo baxay annagoo isticmaalayna sideedii wali wax leedahay complementary rule ma aan isticmaalin wax complementary rule ma aan isticmaalin si la ajligeed waxa ii soo baxay qiimaha saxda oo ay leedahay x yani x intee la kaanaysa 12.86 baa ii soo baxay haddaba waxaan isla fiirin doonaa annagoo isticmaali doona complementary angles yani waa maxay xaglaha 9 isku buuxinaya kadibna waxaan la soo bixi doonaa x ruuxan fiirin doonaa x tani waxa la yiraahdaa maxaa iska bedelay baan fiirin doonaa marka maxaa x tani ma 12.86 bay soo bixi doontaa ma qiimo kale ay noo soo baxaya waan isla fiirin doonaa haddii Ilaahay qadaro okay inatan aynu banaysano si aynu ugu xalino qiimaheena intaas 12.86 mana hilmaami doono inta ay qiimo soo bixi doonto haddaba waxaan isticmaalayaa complementary angles baan isticmaalayaa complementary angles waa maxay waa xagluhu waa inay isku buuxiyaan 35 haddaba xagashaas halkaas waxaan ula baxayaa tusaale ahaan oo kale beta ula baxaya yani waa maxay complementary macnaheedu waa maxay xaglahaasi 9 ay isku buuxiyaan tan automatically xagasha halka taala 9 bay tahay labadaas soo haray baan rabaa inaan isku buuxiyo aan 9 ka soo saaro marka waxaan leeyahay beta oo lagu daray 35 waxa ay la mid noqonaysaa 90 beta waxa ay la mid noqonaysaa 90 oo laga jaray 35 beta waxa ay la mid noqonaysaa qiimadan يعني هذا وحاس فيرنين يعني waa maxay asuranin halkana buuxinaya labada xaglood 90 degree tan baxsan labada kale la rabaa in la isku buuxiyo labada kale baa la rabaa in la isku buuxiyo beetana waxa ku soo haraya marka kala jadho 55 degree baa ku soo baxay hadaba waxaan sameeynaa triangle keena ma gadaal u sawiranaynaa marka mar labaad baan sawiraynaa fiiri waan sawirnay halka waxa la yiraahdo saasan soo xirnay حاجة ما أنت حاجة ما عندك عيا هل كان عندك عيا كوتني شنت وحلي هذا هل كاسوية كوتني شنت تجري كان إكس تي سي يسبدل مايو كان 9 سنتيمتر كيسي يسبدل مايو بر هذا عن حساب إنه أو أي نشتغل نمر يعني كل ساسا على الجوضة أول هل كان أنا هيستي وأنا إسكب بدل هل كاس أنا وريق مر يعني محي كاس عيدي سا كل متر أنا محي كاس عيدي سا هذا يفيد مرك عن حسابين إنه وين سوق قيبني أرد كمر كله 9 waxa uu qaybisa 0.7 xogaa way raadkaanaysa laakiin hadda waxa uu soo bixi doona isku dhufasho 9 oo lagu leeyahay 0.7 oo iga fududaanaysa yani waxa laga yaabaa waxa uu baranaysa ajarka wax kale ma ahan hadda taanka marka aad ka shaqeynayso maadaama laga yaabo imtixaanka wax calculator inaan lagu siin in wax la yiraahdo aad xagasha bedelato meesha awal isku qaybin ka noqon lahayd isku dhufasho aad u bedelato hadda waxaan haysaa xagashaydii reference-ga maanta wax leeyahay waa kan waxa uu noqonayaa maanta opposite bisu uu noqonayaa hypotenuse maan haysto 9 centimeter oo waxa la yiraahdaa adjacent yana waan haystaa hadaba waxa ay xiriirinaya tan baa wali xiriirinaysa waxa la leeyahay tan theta waxa ay la macno tahay opposite oo loo qaybiyay adjacent xagasheedina marka waxa la yiraahdaa waa tan 55 degree ah waxa ay la mid noqotaa opposite-kaygu waa imisa waa x loo qaybiyay adjacent-kaygu ah 9 centimeter fiir hadaya isku qaybin bay naga gashay maanta isku dhubasho gali doonta kadibna waxa la cross multiplication ama tan 7 combination hada fiiriso waxay isleeyihiin intii hadaya bay isleeyihiin afwan yani tan combination marka calculator-kaaga u fiiriso oo aad ku qiimeyso tan combination isma leekaanayaan afwan isma leekaanayaan xeerka hadaya baan uga socdaan waxa ku yiri sin-ta iyo cos-ta markii la isku buuxiyo bay isleekaanayaan tan 55 macnaheedu ma leekaanayso tan 35 sababtoo ah waa laba isku mid ah
سيدا لاجد مركا عداد فيريسو وحقو صوبحايا 1.43 مركا تو ديسمال بليس كسو كوبتو halkani waa x loo qaybiyay 9 cm cross multiplication marka isticmaasho labadaas way isku dhufsamanayaan oo waxa ay noqonaysaa 1.43 oo lagu dhuftay 9 kadibna waxa ku soo baxaya 12.8 iyo 5 baa ku soo baxaya yani waa maxay 1.43 times 9 waliba 87 weeyaan sababtoo maadaama aan soo roodhan garanayno wax la yiraahdaa maadaama aan soo roodhan garanayno soo roodhan garantaasi waxa ay sababaysaa in wax la yiraahdaa wax isbedela oo yar farqi yar u dhaxeeyo marka 1.43 marka ku dhufato 9 waa 12.8 iyo 7 cm hadayna waxa inoo soo baxay 12.8 iyo 6 يعني 0.1 كاس ايرورسكا u dhaxeeya labadoodu waxa uu ka imanaya meel kale ka iman maayo maadaama wax la yiraahdo wixii round inaan ku sameyn doono decimal place aan ku sameyn doono way iskeenaysaa marka asxaabay complementary angle-kana wax la yiraahdaa qaabkaas wax la yiraahdo baa loo isticmaalayaa faa'iidadiisa ugu weyn ee wax la yiraahdo uu ku tiri doono wax kale ma ahan waxa uu ku fududeynayaa xilliga taanta marka aad joogto meeshaad wax isku qaybin lahayd ardayga hadii loo 0.9 loo qabi 0.7 waxa uga fudud in la dhaho 9 oo lagu dhuftay 1.43 baa uga fudud yani isku dhufasha meesha u imanaysa waana ku sheegay complementary angles kaliya waxa loo isticmaali karaa markii laga hadlayo taanta barhada waxaan saan ku haysanaa labadii xaglood hadda waan helnay oo xaglihii taana waa continuation taana waa subordination barhaybatuuniska aan soo xisaabino marka haybatuuniska markaan xisaabinayo waxa ka soo qaadaaba inaan isticmaalayo xakaas iyo linekaas tusaale kan iga tirtir kuwana iga tirtir yani hore baan uga soo hadalnay haybatuuniska qaabka loo xisaabinayo laakiin se waa iska dareynaa maadaama xaqlihii aan ka wada xalin iyaga laftigooda kasoo qaad kana maanta x baa la diray marka waxa la yiraahdo xisaab baa la yiraahday haybatuuniska sababtoo xagaasha 35 waa haystay continuation ta waa la soo baxay labada leen qaabka aan la soo baxay waan haystaa bar haddana waxa fiireynaa baleenkaasi inaynu la soo bixi karno hadaba waxaan haysto markaan fiiriyo reference angle-kayga wax la yiraahdo waa continuation ta hay noqoto automatically opposite-kayga maanta waxba ma haysto yani ma haysto maxaan ka wadaa annawna iguma qorna given value na iguma qorna maadaama waxba aysan igu qornayn waxaan leeyahay ma aan haysto ma leeyahay laakiin labada meelood ee maanta waxay igu qoran waxa weeyaan waa adjacent-gayga iyo habyatuuniskayga waxa ay xiriirinaya haddaan gadaal lagu laabtana waxa la yiraahdaa cos marka waxa leeyahay cos theta cos theta waxa ay la macno tahay adjacent-gayga oo ah 9 cm oo loo qaybiyay x xaashaan haysta marka wax la yiraahdaa waa cos 55 degree waxa ay la macno tahay 9 cm oo loo qaybiyay x hadaba xagashaada hadaad fiiriso calculator-kaaga macalinku ku siin doona xilliga examination-ka waa lagu siin doonaa cos 55 waa lagu siin doonaa cos 55 waa 0.574 waxa ay la macno tahay 9 cm oo loo qaybiyay x cross multiplication da isticmaasho waxa helaysaa 9 cm sababtoo halkan 1 baa u qarsoon 1 ka ayana ka isku dhacaya 0.574 oo lagu dhuftay x dhinaca kasta hadaad u qaybiso 0.574 dhinacana aad u qaybiso 0.574 x waxa ku soo baxaya qiimo dhan waa 9 oo loo qaybiyay 0.574 waxa ay soo baxaya 15.68 two decimal place markaan ku soo koobo centimeter yani waxa ay soo baxay 15.68 teeda kale waxa u garanaysaaba
habituiniusku labada dhinac ee kasta mar kasta uu ka badan yahay tusaale ahaan kale ka 9 baan haystaa ma laga yaabaa inuu ii soo baxo habituiniuskayga 9 wax ka yar ma macquul ma basugaayba sababtoo ah habituiniusku mar kasta waxa uu ka dheer yahay labada kale uu ka dheer yahay oo maxaa ku cadeynaya inuu ka dheer yahay haddii waxaanu soo xisaabinay 10kan xiisada koreysay inaan niraanay habituiniuska oo la isku wargareeyay waxa uu la mid yahay labada kale oo la isku wariyay oo la isku daray marka sidaasi wala soo hadda waxa inoo soo baxay 15.68 15.68 hadda waxaan fiirinaynaa hadda maxaan isticmaalnay cos baan isticmaalnay haddayna halkan waxaan soo saarnay 12.86 barmaanta waxaan fiirinaynaa maanta hadda waxaan isla qaadanay labadaasaan isla qaadanay soo maahin barmaanta maanta waxaan ka saarayaa kanaan ka tirtirayaa meesha labadaasaan isla qaadanayaa bar in iyaduna ii soo baxdo 15.68 yani haddii aadan processka aadan khaldin meel allaale si kasta iyo qaab kasta aad uga shaqeyso xisaabtaadu waxa ay noqonaysaa mid isleeg bay noqonaysaa hadda maanta maxaan haystaa fiir opposite iyo habituinius maxaan isticmaalayaa marka same baan isticmaalayaa waxaan leeyahay marka sin theta waxa ay la macno tahay opposite-ka oo ah 12.86 oo loo qaybiyay habituiniuskayga oo ahaa x xagashayda waan haystaa waa sin 55 sin 55 waxa isleeyihiin cos 35 waa isleeyihiin hadda calculator-ka geliso aad ku qiimeyso 86 oo loo qaybiyay x kadibna calculator-ka macallinku uu ku siin doona xilliga imtixaanka haddii uu ku siin waayana xagli special English-ka oo aynu kaga soo hadalnay video ka horeeyay baa lagu siin doonaa markaan xisaabino sin 55 waxa inoo soo baxaya 0.819 markaan ku soo koobno 3 decimal place waxa ay la macno tahay 12 oo loo qaybiyay 86 oo loo qaybiyay x cross multiplication haddii aan isticmaalo 12.86 waxa ay la mid noqonaysaa 0.819 x dhinac kasta marka haddii aad u qaybiso 0.819 x waxa ku soo baxaya x waxay la macno tahay 12.86 oo loo qaybiyay 0.819 waxay soo baxaya 15.87 وانا ku sheegay kullama rounding ka aynu isticmaalno sababtoo ah hada fiiri 3 decimal place kaasi wuxuu iga sababay inuu soo baxo salaajiga laakiin se labadoodu markasta waxay isku imanayaan haddii 1 decimal place aan ku soo koobatan oo aan dho 15.8 haddii aan soo duubo waxa la yiraahdaa oo aan caad u soo duubo 15 keedii bay noqonayaan haddii aan ku soo koobo waxa la yiraahdaa number dhammaystiran hadaan ku soo koobo haddaba asxaabay si kasta aad uga shaqeyso process kasta aad madho jawaabo waxa ay noqon doonaan waxa la yiraahdaa kuwa sax haddaba exact value si aad u keento maxaa laga rabaa marka oo tusaale ahaan kale ay haddii aan rabo inay soo baxdo 15.68 meesha anigu hadda aan ka dhigay 3 decimal place waxa gaarsiisa ilaa 5 decimal place gaarsi kullama waxa la yiraahdaa decimal place-kaaga waxa la yiraahdaa aad soo yareyso haddii aan laba qaadan lahaa waxa laga yaabaa inay ka sii badnaan lahayd oo 0.87 meesha ah inay soo baxdo 0.9 oo kale laakiin haddii aan qaadan lahaa 5 decimal place 0.819 lambar kale laba kale aan ku sixaysin lahaa lambarkan qiimo ka yar baa soo bixi lahaa marka sidaasi waxa ay sababaysaa kullama decimal place-kaaga waxa la yiraahdaa aad badiso wa kullama aad u dhawaato exact value qiimihiisa saxda ah u soo dhawaato asxaabi qaabkana uga shaqeyn karaan habituinius waxa la yiraahdaa Pythagoras theorem ka laftigiisa waxa la yiraahdaa waa uga shaqeyn doontaan isagana hore baynu uga soo hadalnay qaabka looga shaqeynayo haddaba asxaabay keena maanta intaas aan rabay inaan ku soo gabagabeeyo inta aynu u kulmi doonaa asxaabay xiisada xigta waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah